السلام الله عليكم داوديال وقتigu haydin wacnaado xilli kasta aad joogtaan iyo meel kasta aad ku sugan tihiinba halkani waa shabakada Botan Media waxaad ku soo dhawaataan warar degdeg ah oo inaga soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne oo inala soo xiriiray faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya xaaladda ka taagan magaalada Beledweyne ee ku soo dhawaada daawadayaal warbixintaasi oo faahfaahsan dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ciidamada golaha kacdoonka Hiiraan oo hogaamiyo General Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada kacdoonka ay weerar ay ku qaadeen gudaha magaalada Beledweyne waxaana dagaalka uu ka dhacay xaafado ay ka mid yihiin xaafada Hawataako Kooshin iyo Laanta Nuur Xaad khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa dagaalkaasi ka dhashay sida ay xaqiijiyeen laamaha caafimaadka magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay halkaasi shalay ay gaareen golaha wasiirada Hirshabeelle qaar ka tirsan iyo weliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle kuwaasi oo u tagay magaalada Beledweyne in kulan arrimaha amniga looga hadlayo ay qabtaan halkaasi waxaa xiran wadooyinka magaalada Beledweyne iyadoo laga cabsi qabo in banaabaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle halkaas ay ka dhacaan waxa goordhaweeyto oo maanta ay nala soo xiriiray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne kuwaasi oo faahin dheeraad ah naga siiyay xaaladda magaaladaasi iyo weliba sida ay haatan tahay magacayga markaan ku bilaabo waxa la yiraahdaa fahmo magacaygu waa magacaas waxaan kaloo ku sheegayaa arrintii shaqaaqada ahayd oo meeshaan ka dhacday maantay oo xambaarsaneyd ilaa iyo xilligii Hirshabeelle la tabcay ma garata waa gartay ilaa xilligii Hirshabeelle la tabcay shaqaaqooyin iyo dhibaatooyin reer Hiiraan iyo ka jiray maamulka Hirshabeelle maamulkaas oo awalba si xaq daraa lagu sameeyay oo ka bacdina kacdoon ka bilowday kacdoonkii oo magaaladiisii iyo carradiisii iska jooga oo Hirshabeelle ka soo horjeeda abnigiisuna aad iyo aad u fiican yahay oo aan diidnay Hirshabeelle inay gobolkan wax ka qabato wixii hore oo Hirshabeelle noo yimidna ay ku jiraan meeshoodaas oo iska joogaan ayagii laftigoodu waxa ay bilaabeen si ay dhibaato Hiiraan iyo xabad uga abuuraan waa gartay maxaa ku diidantiin idinka Hirshabeelle maxaa ku diideen annaga Hirshabeelle waxaan ku diidnay Hirshabeelle annagu maadaama awal ay ahayd dad wax isku darsaday oo markay wax isku darsanayeen wax la isku darsan oo dad horeeto oo maaragtay adigu maamul goob aha meesha ay tageen wixii ay soo qaateen markaasna annagoo waliba dhibaato ay nagu hayaan faraha uga qaadnay ay tii labaad iyadoo la leeyahay hal la sameeyo dib u heshiisiin si dadkaasu ay maamuladooda iskugu darsadaan si xaq ah oo maamulka markii la heshiisiyo oo la turxaan bixiyo ka bacdi hal la dhiso ay sidii oo kala dhacday haddana sidii oo kale markay dhacday oo maamulkii aan wax isku darsan lahayn oo awood qaybsi lahayn nooc kastaba ha ahaato awood qaybsi lahayn oo magaalada hadda Hiiraan lagu jiiday Jowhar oo ogtahay inay ahayd 8 gobol oo Soomaaliya ay ahayd ayana degmo baraandir ka tirsanay nala hoosgeeyay oo saas aanan dadka maamulka aanan hadda awood qaybsi ma ahan maxaa saan loo yeelay aanan taagnayn haddana waxa timid in nin walba u shii annagu aan lahayn nin duudsado markuu duudsayna uu ku yiri ana u shaadinaysta waxaan lahaana qaatay ila hadal nin shalay adiga u shaadi qaatay maanta ma la hadli kartaa oo kula kor taagan waa maya ayadoo saas tahay oo aan diidnay inaan hadeertaan arrintaas ilaa xal laga gaaro inay Hirshabeelle shaqaynin oo amnigeena suganayno oo federaalkii raalli uga nahay inay magaaladan ka shaqayso waxaan si hor taaganahay Hirshabeelle tahay Hirshabeellena aan ku hor taaganahay inay ayadu waxa la wixii Hirshabeelle ay ayadu labadii maamul waxay lahaayeen isku qaateen labadii gobol waxay lahaayeen ayagu isku qaateen waa gartay aan taaganahay
waxaan kaloo ku weydiin lahaa waa gartay waxaan ku weydiinayaa waxaad tiri shaqaaqo ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne shaqaaqada halkaas ka dhacday maxay tahay maxaa magaalada hadda ka soo cusboonaaday oo aad idinku aad ka cabanaysaan oo aad nala soo xiriirteen waxaan shaqaaqada wax ka dhacday waxa waaye iyadoo gobolku hadda uu doorasho dawladda loo dareeray oo aan amnigeena suganayno oo 25 kursi oo Hiiraan taale diyaar u nahay inay iyadoo nabada ay ku dhacdo ninka la yiraahdo dawladda federaalkana ay maamusho ashale waxa yimid wasiiro Hirshabeelle u gogol xaara 25 kursi iyo maamulkoodii iyo guudlaawe intaba u gogol xaaraysa shala timid ma fahantay waa gartay annaguna awalba waxaan diyaar u ahayn dib u heshiisiin inay ka hormarto arrintan oo federaalku yimaado dib u heshiisiin la sameeyo cabashada reer Hiiraan la ogaado cabashadii iyo dhibaatadii meesha ka jirta iyadoo la ogaanaa la soo duldigay mar labaad kacdoonkii saasoo ku kacay saaka xabada magaalada ka dhex bilaabatay haddana alxamdulillah hadda wixii adu dib weyn meeshii kama dhicin marka yaa isku xabadeeyay magaalada waxa isku xabadeeyay nimankan dawladda sheegana oo Hirshabeelle waxay xabadeeyeen dadkii shacabka oo beledka joogay oo xabad ka bilaabo buundooyinkii xirto caburin keenayo wararkii oo dhan iyo dadkii inuu hadla xataa diiday oo dadkii guriyii ka soo qabsanaa dhibaato badan ay ku hayaan dadka intaas bilaabatay shaqaaqadii wasiiradii wixii Hirshabeelle geediya oo soo degtay intaba ha yaraatee annagu dhibaato oo dawladda federaalka aan ku hayno ma jirto dawladda federaalka waa dawladeeni diyaaraan u nahay ra'iisul wasaare haduu imaana hadii madax kale dawladda ay imaanaysa laakiin Hirshabeelle ka soo jeed Hirshabeelle cabashadeena in dawladda federaalka soo dhex gasho aan diyaar u nahay ma in la soo degdego diyaar u minni waa gartay laakiin waxaa la soconaa in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble marka la eego maamulada dhisan ee Soomaaliya haday noqon lahaayeen Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland iyo Galmudug in loo diray liiskii dadka ergada markaasi arrimaha doorashada iyaga u matali doona deegaanadooda marka haddii ay idinku tihiin maxaa la yiraahdaa deegaanka Hirshabeelle dadkii ku dhaqanaa oo deegaankaasi deganaa haddii ay jiraan dad idinka idimatalaya oo dadkii aad taqaaneen oo gudiyada lagu daray maxaad arrintaas aad ku diidantihiin annaga waxaan nahay ma diidanin waxaan ku diidanayn gado hadda baalkii ii sheeg Jubbaland dhibka ka jira waad u jeedaa Jubbaland gado waxay ka cabatay Jubbaland erga loo diray annaguna waxaan ka cabanay Hirshabeelle ergana looma dirin federaalka iyo ra'iisul wasaaruhu waxay xaq u leeyihiin meesha ay gado ergada uga direen inay u soo diraan Hirshabeellena inta arinta laga xalinayo ay meesheeda joogto taasay xaq u lahaayeen marka cabashada meesha taala waxa waaye inaan loo xaq bixinin Hiiraan oo waxay xaq u lahayd iyo waftiga ay lahayd iyo dib u heshiisiinta ay lahayd midna aan la siin inta ay lahayd sida gado kale waa gartay gabar kale ayaa khadka ku jirta walaal magacaada noogu bilaabaya Muraya hay Muraya bal waxaad nooga warantaa xaaladda hadda sidee tahay iyo waxyaabihii ugu dambeeyay oo aad markaasi idinka aad ka cabanaysaan magaalada Beledweyne waa magaalo xadaarad waa magaalo oo fac weyn leh sawlo socotaba ka soo haray goboladii hore ee 8 iyo 6 ahaybo magaalada hadda mid walaashay ay ka hadashay marka dhameystirto wariyaashii gobolkaan ahay iyo hoteeladii gobolkaan ahay xalal shiriyay
waxaa la geeyey meesha maamulka ay tahay waxaana la yiri maamulka ninkii hotelkiisa lagu shiro iyo qofka wardoodaba xabsiga iska xaadirna daas waay hadda u caburanahay beel la aado iyo meel loo dhaqaaq aan lehaynin buul aan kala dhexlooya meesha aan ka hadlayo waa ujeedaa noocee u taalo waab hoosteedan ku jirnaa dadkiina haddaan kuu geyna haddaa arto meeshay tuuran yihiin marka annaga gobolkeena madaxweynihii iyo madaxweynihii iyo caasimadii iyo wasiiradii waa isku darsadeen reerkaas markaa runta kuu sheego waa gartay laakiin haddaan dhinaca kale aan eegno maamulada Soomaaliya ka dhisan waxay wax ku qaybsadaan waa qaab awood qaybsi qabiileed ah labada madaxweyne ee ka horeeyay ee madaxweynaha haatan Hirshabeelle waxay ka soo jeedeen magaalada Beledweyne marka haddii markaan la yiraahdo dadka Hirshabeelle wada degan haddii ay wada qaybsadaan awoodoodii ama xukunkoodii wada qaybsadaan arintaasi maxaa ku jaban aad u soo dhaweynayna annaga haddii madaxweyne helno iyo haddaan caasimad helnaba mid aan soo dhaweynayna waa dad dawladda jecelaanahay dad maamulka administrationka jecelaanahay dad oo waxaan xadaarad loo ka soo jeedaan wixii siyaasi Soomaaliya ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ee ka soo baxay dadkii horaanahay oo helanahay waliba وبسا أنك فيدينه لكن ما أنقول رئيس الشباب إن مدحوني ديواني هنا عاصمة ديوان لبضبا ما أنقول عدنا إلا لفريستو أو واي أو قاتن وحانو نليرا ولا لحساب طبعا ما بأنقول با سي أود دودة أي سنة كسوة قلن قبل كان سي أود دودة أنا ويساق سارين سي أود أنا ويساق سارين إن شاء الله kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne oo si gaar ah ugu waramayay warbaahinta Botan Media iyagoona ku sugan magaalada Beledweyne inta warbixintan mid lamid kulum doono daawadayaal waxaad ka tagaya sidaas nabadgelyo haddii ay tahay markii inta warbixintan mid lamid kulum doono waxaad ka tagaya sidaas nabadgelyo haddii ay tahay markii kugu horeysay aad warbixintan daawanaysid fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid markasta macluumaadka iyo wararkan idin soo gudbinayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.